بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا شرفت بدن سود وهذا ملك استأجرتان ولكن محمد مارة يمقال كله صدق ذا وقتي أي جبردو وجوبه هذا بدن تهاي يعني جرب كهشة أو أي وهشته سوتش كذا أمانين كذا لو هذا قف لما أنها مركز تويسكو بهايهين احترام بيسجب بهايهين وناك بيسجب بهايهين شعيل بيسجب بهايهين كالقعيل بيسجب بهايهين جرب استاك بيسجب بهايهين waxay isaga baahan yihiin wax kasta oo qofka bini'aadamka ay qof bashar uga baahan yahay oo wanaagsan laakiin waxa jira marxalado gaar ah oo ay gabadhu ugu baahida badan tahay in ninkeeda ay garab ka hesho ama ay weheshato ma aan kaliya gabadhu inay ninka u baahan tahay balse ninku kaga baahi badan yahay gabadha marka loo eego dhanka guurka ama guriga laakiin mowduuca marka la ayaan ka hadli doonaa waxaan rabaa inaan muuqaalkan ku soo koobo saddexda waqti ee ay gabadha ama xaaskaagu kuugu baahan tahay ama ugu baahida badan tahay inaad garab istaagto ama ay wehelkeeda ku noqoto qodobka koowaad gabadhu marka la soo guursado oo ay guriga hooyadeed ka timaado oo ay timaado guriga ninkeeda ama qofka ay nolosha wadaagi doonaan oo ay wada noolaan doonaan way baqdaa wayna cabsataa waa marka ay ugu baahida badan tahay xataa habeenka koowaad iyo maalinka koowaad maahan isbuucaas oo dhan gabadhu waxay inta ay la qabsanayso in ay guri kale ku noolaato waxa looga baahan yahay inaad garab istaagto oo aad u muujiso naxariis iyo kalgacayl iyo ixtiraam dheeraad ah qodobka labaad gabadhu marka ay uur qaado oo ay caloosheeda Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ilmo ku abuuro 5 bilood ilaa 4 bilood ee ugu horeeya ay gabadhu walaaca ku jirto waxay ugu baahi badan tahay inay wehel ka hesho sawjkeeda ama ninkeeda runtii waliba marka ay gabdhuhu ugu ka yihiin ay curanayaan iyo markasta ay gabadhu uur qaadaba waxay martaa rafaad cunto yari hurdo yari walwal culays waxaanay hore u arag xanuun aanay hore u arag waxyaabo la mid ah saadaradeed waa marka ay ugu baahida badan tahay in uu sawjkeedu ama ninkeedu uu garab istaago qodobka saddexaad ilmuhu marka uu dhasho oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu adduunka korkiisa u keeno runtii 5 bilood ugu horeeya ilaa 6 bilood ugu horeeya ee ilmuhu adduunka yimaado gabadhu koriimadiisa waxay ka martaa rafaad aad u badan soo jeed habeenkii ah maalinkii ah naas nuujin ka warhayd eegid dhowrid waxyaabo la mid ah saadaradeed waxa ugu daran ee gabadhu rafaadka u marto waxa weeyaan soo jeedka habeenkii ah oo caruurtu marka ay dhashaan way mirtaan ama waxay bartaan in ay soo habeenkii dhowr mar oo kamid ay kacaan ama ooyaan ama caan u baahdaan ama waxyaabo la mid ah saadaradeed waa marka ay gabadhu ugu baahida badan tahay inay caawinaad ka hesho ninkeeda saddexda qodob waa saddexda mar ee gabadhu ugu baahida badan tahay in ay garab ka hesho adiga oo ah sawjkeeda ku dadaal in aad garab istaagto markasta marwadaada laakiin si gaar ah u ogow saddexda marxaladood marka ay gabadhu ku sugan tahay intaan ku kulmayno muuqaalka xiga waad mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.